maanta heesoo waxay noqdeen shay intishaara, waxay noqdeen shay lagu faantamo, waxay noqdeen waxyaaba dadka lagu soo dhoweeyo, ilaa heer lagu magacaabay inay yihiin hanuunin ayaa lagu tilmaamay. qur'aankii wax hanuunin lahaa dib u dhac ayaa loo arkay maanta. wallaahi fitna ka weyn ma jirto. heesihii shayaadiinnimada, gabdhihii sunnaadda ahaa, kuwii xaqa alla diiday ay ku socdeenna waxaa loo arkay waxyaaba hanuunin ah. waxaad maqlaysaa hoballadii hanuuninta. waxay hanuuninayaan maxay yihiin? dadkay waxay ku hanuuninayaan naarta. waxaa imaan doona buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam, dad noocaasoo kale ah oo xumaanta dadka ugu waca oo khayrka ilaahay diida. ninka la yidhaahda xudayfa ibnu yamaan wuxuu yidhi kaana annaasu yas'aluuna rasuulallaahi, dadku waxay ahaayeen kuwa rasuulka cani ilkhayri, khayrka weyddiista. wa kuntu as'aluhu cani ishari, anigu shartaa weyddiin jiray buu yidhi xudayfa. sababtu waxay tahay makhaafata an yudrikanii, anoo ka cabsanaya haleelkeeda. markaasaan maalin idhi yaa rasuulallah, innaa kunnaa fii jaahiliya, annagu jaahli ayaan ku sugnayn iyo jaahil